wasaaradda caafimaadka ee Puntland iyo hay'adda NCA ayaa magaaladaasi Garowe waxa ay ku qaybiyeen deeq raashin ah iyagoo markaa u qaybiyay qoysas gaaraya ilaa 140 qoys oo isugu jiray kuwa barakacayaal iyo kuwa danyar ah sida faafinta warkaan magaalada Garowe inooga soo diray Maxamed Saciid Yuusuf oo halka Somali Channel uga soo warama. wasaaradda caafimaadka Puntland oo ka shanaysa hay'adda NCA ayaa raashinkan u qaybisay 140 qoys oo danyar iyo barakacayaal isugu jira gaar ahaan haween uur leh iyo caruur yar yar oo nafaqo la'aan hayso. Munaasabadda raashinkan lagu qaybinayay oo lagu qabtay xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee kaamka Jowle waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda NCA. Yuusuf Cabduqaadir Xirsi madaxa hay'adda NCA ee Puntland oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda barnaamijkan iyo waxa loogu talagalay. barnaamij loogu talagalay Soomaaliya gaar ahaan dadka hooyooyinka uurka leh iyo ciyaalka yar oo malnutritionka ama nafaqa darradu ay hayso. qaybtan waa qaybtii ugu horeysay oo aanu MCH kan aanu hadda ka qabanay kuwa kale oo la midana soo socdaan hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa inay gaari doonto dadkii loogu talagalay waxaan kaloo rajaynayaa hooyooyinka iyo ciyaalka loogu talagalay inuu ay wax tari doonto. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa sharaxaya tirada qoysaska raashinkan ka faa'iideysanaya iyo sida loo soo xulay isagoo hay'adaha caalamiga ugu baaqay inay gargaar u fidiyaan caruurta iyo haweenka nafaqo la'aanta hayso ee Puntland ku sugan. dadkan halka u jeeda taagan waa runtii la soo xulay oo screen ama loo sameeyay oo marka la qiimeeyo heerkooda nafaqo ama hooyada ha noqoto ama ilmaha saas la aligeed markii la soo xulay 140 qoys 140 qoys waxa rajeynaa inay ka faa'iideystaan mashruucan muddo 3 bilood oo fayska koowaad waxa sida inoo muuqato la sii dooray si joogto ah dilaadna 3 bilood qoys walba raashinka halka yaala oo saa u jeedaan hadda bariis saliid digir kusudka nafaqeynta caruurta oo lagu talagalay caruurta nafaqada safir moderate malnutrition ka waxa mar kula uu yareeyo dhamaan hay'adaha iyo bulshadaba iyadoo la tixraacayo heerka nafaqa darrada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan dadka barakacayaasha loo yaqaan oo ku nool muxuu ahaa gobolka Puntland dhan inay jiraan warbixinada waxaanu haynaa inay jiraan waxyaalo badan oo runtii u baahan in wax laga qabto heerka nafaqada aad u hooseyso. marka laga yimaado haweenkan iyo caruurta maanta raashinka loo qaybiyay waxaa jira qoysas badan oo danyar iyo barakacayaal isugu jira oo u baahan in loo fidiyo gacan bini'aadantinimo. Maxamed Saciid, Somali Channel, Garowe.